maxaa dhacaya haddii ay dunidu isku adeegsato hubka nuclear? ma qiyaasi kartaa in dunidu ku burburi karto ilbiriqsi gudihii? hal xambo oo nuclear ah oo lagu rido magaalada New York waxay dhimashadu dadku kor u dhaafi kartaa 583,160 qof. maanta waxaan ka hadlaynaa 9 dal ee dunidu ka nacsan tahay, kuwaas oo haysta wadarta in ka badan 12,100 ilaa 12,300 oo madax nuclear. su'aashu waxay tahay, wadankee haysto tirada ugu badan? wadan kasta tiro intee leeg ayuu haystaa? muuqaalkan ayaan ku eegi doonaa. wadanka kaalinta 9aad ku jira waa Kuuriya Waqooyi oo haysta 50 madax nuclear. waxay hadda haystaan maado ku filan in ka badan 50 gantaal. waxay xooga saarayaan gantaalada Hwasong 17 kuwaas oo loogu talagalay inay gaaraan gudaha Mareykanka. waa dalka kaliya ee qarnigan 21aad sameeyay tijaabo nuclear oo dhulka hoostiisa. waxaa kaalinta 8aad ku jira Israel oo haysata 90 madax nuclear. inkastoo aysan weligood qiran, haddana waxaa la rumaysan yahay inay haystaan hubka Jericho 3 oo ah gantaal ridada dheer ah. weerarkii ugu dambeeyay ee Iran wuxuu muujinayaa in hubka nuclear-ku uu yahay gaashaanka ugu dambeeya, balse uusan ka horjoogsan karin dalalka kale inay gantaalo caadi ah kusoo ridaan. wadanka kaalinta 7aad ku jira waa Pakistan oo haysata 172 madax nuclear. Pakistan waxay si xawli ah u horumarisay gantaalada Shaheen 3. waxay haystaan awood ay kaga ridaan hubka diyaaradaha F-16 iyo gantaalada dhulka. waa dalka kaliya ee Islaamka ee haysta cududan. waxay leeyihiin nidaam difaac oo aad u adag. wadanka kaalinta 6aad ku jira waa Hindiya oo haysata 180 madax nuclear. Hindiya waxay hadda gaartay 180 iyadoo si rasmi ah ugu horumartay Pakistan. waxay xooga saarayaan gantaalka Agni-V oo gaari kara 5,000 oo kiiloomitir. India waxay leeyihiin siyaasad no first use oo la macno ah inay dhihi karaan annagu marka hore weerarka ma bilaabeyno, laakiin haddii nala soo weeraro argosigu wuxuu noqon doonaa mid dhimasho ah. wadanka kaalinta 5aad ku jira waa Ingiriiska oo haysta 225 madax nuclear. hubka Ingiriisku wuxuu 100% saaran yahay 4 markab oo quusa. mid kasta wuxuu xambaari karaa 8 ilaa 16 gantaal nooca Trident T2D5 ah. ma haystaan gantaalo yaalla dhulka ama diyaarado u gaar ah. haddii maraakiibtooda badda hoosteeda taala la waayo, awoodoodu way dhimanaysaa. wadanka kaalinta 4aad ku jira waa Faransiiska oo haysta 290 madax nuclear. waxay haystaan qiyaastii 290 madax nuclear. waxay u kala qaybsan yihiin maraakiibta dagaalka ee quusa iyo diyaaradaha dagaalka ee Rafale. Faransiisku wuxuu leeyahay madax nuclear loo yaqaano ASMB, kaasoo loo isticmaalo digniinta ugu dambeysa ka hor inta dagaalka weyn la galin. kaalinta 3aad waxaa ku jira dalka China oo haysta 600 oo madax nuclear. kan waa isbedelka weyn. Shiinuhu wuxuu hadda gaaray 600. waxay dhisayaan boqolaal godad oo cusub oo laga rido gantaalada Da-41. Shiinaha ayaa ah dalka hadda dunida ugu dhiska badan dhanka nuclear-ka, isagoo raba inuu la tartamo Mareykanka 2030. saaxiib, haddii aad inta nala soo gaartay, fadlan video like saar, page-ka follow soo dheh asxaabtadan oo share garay. mahadsanid. wadanka kaalinta 2aad fadhiya waa Mareykanka oo haysta 5,044 madax nuclear. Mareykanku wuxuu haystaa 1,770 oo ah kuwa heeganka ah. waxay hub ku leeyihiin 5 dal oo Yurub ah oo kala ah Turkiga, Talyaaniga, Belgiumka, Jarmalka iyo Netherland. Mareykanku wuxuu hadda ku bixinayaa 1.5 trilyan si uu casriyeeyo dhammaan hubkiisa nuclear-ka ah muddo 30 sano ah. ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay wadanka kaalinta 1aad ku jira oo ah Russia. Russia wuxuu haystaa 5,580 madax nuclear. Russia ayaa ah kan ugu sarreeya liiska. waxay haystaan gantaalada RS-28 Sarmat ama loo yaqaano Saturn 2 oo hal xambo oo ka mid ah dumin karto dhul baaxadiisu la mid yahay dalka Faransiiska ama gobolka Texas. Ruushka iyo Mareykanka oo kaliya waxay haystaan 90% dhammaan hubka nuclear-ka ee dunida yaalla. saaxiibayaal, hubka maanta yaalla wuxuu qiyaastii 1000 jeer ka xoog badan yahay kii lagu dhuftay Hiroshima. inkastoo 9 dal kaliya haystaan hubkan, haddana waxaa jira 32 wadan oo kale oo taageera ama dalkooda lagu hayo. awoodda dhabta ma ahan burburinta, ee waa badbaadinta nolosha bini'aadamka. adigu maxay kula tahay? ma malaynaysaa in dunidu nabad ka jiri karto inta hubkan yaallo? agteeda noogu reeb qaybta faalada. video like saar, page-ka follow soo dheh asxaabtadan oo share garay. mahadsanid.